بسم الله الرحمن الرحيم anigoo magacaygu yahay Cabdillaah Maxamed Gaxnug ahna musharax u taagan doorashada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa maanta halkan waxaan ku qabanayaa aan kaga hadlayo waxa weeye laba qodob oo ah inaynu soo dhaweeyno muddayntii loo sameeyay doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka taasoo doorashooyin qabsoomidii hore ama muddooyinkii hore la kordhin jiray ama loo qaban jiray doorashada kaga duwan in imika xisbiyadii qaranka xukuumadii iyo komishinkii baa isku raacsan yihiin in doorashada waqtigeeda 9 bilood gudahood lagu qabto inta ka horeysana loo diyaar garoobo qabsoomidii doorashada waxyaabihii ka horeeyay si diiwaangelintii codbixiyaasha taasaan hambalyeynaa soo dhaweynayna waa marka koobaad ta kale waxaan ku darayaa in shacbigana waxaan leeyahay u diyaar garooba doorashadii 9 bilood gudahood bay ku dhacaysaa diiwaangelintii baa ka soo horeysa codbixiyaasha oo bilaabaya meel kasta ay joogaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay wixii hore aan kaar u qaadanay kaar ka qaataan oo ha u diyaar garoobaan codbixiyaasha wixii xildhibaanada u sharaxnaa golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka waxaan leeyahay idinkuna ka diyaar garooba kana qayb qaata qabsoomida doorashada wixii dhinaciina ku saabsanaa ta kale waxaan ku daray waxa weeyeen waxaan ku hambalyeynaa madaxweynaha iyo dawladda iyo xisbiyada qaranka iyo komishanka qaranka intaba way qabsoomida maanta dhinaca laga wadahay laga garab taagan yahay la isku wada og yahay in xilliga ku qabsantana aad iyo aad baan u hambalyeynaa waan soo dhaweynaa annagana aad baan ugu raagto 5 sanadood ayaa ay rag qaar ku marsa rag qaar 12 sanadood bay ku marsa rag qaar 9 sanadood bay ku marsa intaaba maalinta ka dambeysay baa la islaha malaha maanta ugu dhawday intii hore kama hadal laakiin maanta waxaan uga hadlaynaa hanaanka iyo wada socodka iyo qaab dhismeedka imika loo dhigay ayaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore kuwa imika la isku wada kalsoon yahay lagu wada socdo dhinac looga soo jeedo saasaan u hambalyeynaa una bogodinaa una soo dhaweynaa aad iyo aad nabad baxsantii waana salaamay